iyadoo 24 saacadood ee la soo dhaafay roobab xooggan oo dabaylo wata ay ka daayeen deegaanada hoos yimaada gobolada Awdal iyo Salal kuwaas oo waqtiyadii ugu dambeysay ahaa kuwa watay dabaylo xooggan ayaa waxa ay soo taraysa khasaaraha iskugu jira dhimashada iyo dhaawaca ee ka soo yeedhaya deegaanada kala duwan ee hoos yimaada gobolkani Awdal kulan degdeg ah oo iskugu yimaadeen laamaha dawladda iyo kuwa hay'adaha madaxa bannaan waxa uu barasaabka gobolka Awdal u xaqiijiyay warfidiyeenada ilaa hadda inay soo gaadheen tiro 14 ruux oo ku dhintay roobabkii ka daay deegaanada hoos yimaada gobolkani Awdal uu ka dhacay dhibaatadu ha kala yaraatee dhibaatana uu geystay taas way ka mid yihiin xoolaha oo la soo sheegay inuu xoolihii aad iyo aad u riiqmeen ama uu waxyeelay ama dhimashada xooluhu aad u badantay iyo dhimashada dadku runtii labada degmo inta aanu ka warhayno ilaa hadda waxay maraysaa ilaa 14 qof oo gargaara oo lagu hayo kamid ah iyo degmada Baki inta kale oo ah gargaara 8 qof baa imika malaha ku dhintay 6 qof ma nuhumno lagu haya wali wax isgaarsiina oo amba telefoon ha noqoto ama nooc kale ma noqoto oo laga haya meesha la yiraahdo lagu haya say u bilaabantay shalay aroortii baa cid ugu dambeysay wixii ka dambeeyay wax dhintay iyo wax nool cid ugu ma jirto laakiin qayb kamid ah oo gargaara ah baa la hayaa dhimasho 8 qof dabadeed meesha Baki la yiraahdo wax laga soo sheegay dhimasho ilaa 7 qof ah oo dhowr meelood oo kala duwan isku soo wada duubo ilaa imika waxaana si dhab ah loo hayn khasaaraha rasmiga ah oo sababay roobabkii ka daayay deegaanadan Wajama Xuseen Jaamacadde Somali Cable TV gobolada galbeedka Somaliland.